taariikhda Abuubakar Sidiiq radiyallahu canhu. Abuubakar Sidiiq radiyallahu canhu magaciisa oo dhammaystiran waa Cabdullaahi ibnu Cusmaan ibnu Caamir. Hooyadiisna waxaa la oran jiray Salma bintu Sakhar. Qabiilkiisu waa Quraysh lafta reer Taym. Wuxuu ku dhashay magaalada Maka 2 sano iyo 6 bilood kadib dhacdadii Alfiil ee Abraasha al-Xabashi uu doonayay inuu ku burburiyo Kacbada barakeysan. Waxay ku beegnayd bishii Oktoobar 573 wuxuuna dhintay Jamaadul Awwal 13 Hijriyada oo ku beegan 23 Agoosto 634 miilaadiga. Islaamka ka hor wuxuu ka mid ahaa madaxda Quraysh ee maamuuska leh, weligeena sanam ma caabudin, zino ma gelin, khamrina ma bacbi jirin. Wuxuu aad ugu xil dheeraa abtirsiimada qabaa'ilka Carabta ah oo idil, wuxuuna ahaa ganacsade deeqsi ah. Markuu soo islaamay kadib, hantidiisa oo dhan wuxuu ku bixiyay diinta Allah. Wuxuu aad u jeclaa sadaqada, sidoo kale wuxuu xoreyn jiray dadka dhiban ee adoonsiga ku jira. Waa qofka ugu fadliga badan ummadda Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, uguna iimaan weyn. Waa saaxiibka koowaad ee Nabi Maxamed sallallahu wasallam calayh, ahana khaliifka koowaad ee khulafaa raashidiinta ee dowladda Islaamka. Abuubakar waxaa loo yaqaanaa al-Sidiiq, runsheege, sababtoo ah wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee rumeeya Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo rag ah. Waxaa ka horreeyay oo kaliya xaaskii Nabiga ee Khadiija. Wuxuu la hijrooday Nabiga magaalada Madiina, waxayna gaaladii Quraysh dul dhigeen madaxiisa 100 neef oo geel ah, sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay u dul dhigeen oo kale. Wuxuu la galay Nabiga sallallahu alayhi wasallam godkii Thawr, waxayna ku jireen 3 habeen. Wuxuu ka qayb qaatay oo goobjooge ka ahaa dhammaan dagaaladii iyo dhacdooyinkii Nabiga sallallahu alayhi wasallam sida Badr, Uhud, Khandaq, Khaybara, Hudaybiyah, furashadii Maka iyo kuwo kale oo badan. Abuubakar waxa uu guursaday 4 haween, 4 xaas. Magacyadooda waxay kala yihiin: 1. Khutayla bintu Cabdul Uzza, waxay u dhashay Abubakar, Cabdullah iyo Asmaa. 2. Rawmaan bintu Caamir al-Kunuuniya, waxay u dhashay Cabdiraxmaan iyo Caaisha. 3. Asma bintu Cumays, waxay u dhashay Maxamed. 4. Xabiiba bintu Khaarija, waxay u dhashay Kaltuum. Markuu soo islaamay, wuxuu bilaabay faafinta diinta Islaamka, waxaana gacmihiisa ku soo islaamay Cuthmaan bin Cafaan, Zubayr bin Cawaan, Dalxa bin Ubaydillah, Sacad bin Abi Waqaas, Cabdiraxmaan bin Cawf, Abi Cubayda, Abi Salama iyo kuwo kale oo fara badan. Rasuulka Alle sallallahu wasallam calayh markuu xanuunsaday oo ay geeridiisu soo dhowaatay, wuxuu ku amray Abuubakar Sidiiq inuu muslimiinta salaada ka bixiyo. Kadib geerida rasuulka sallallahu wasallam calayh, asxaabta ayaa argagax ku dhacay. Qaar baa istaagi waayay, qaarkood hadalkii ayay gabeen, heer uu gaaray Sayyidina Cumar bin Khadaab inuu u cabajugleeyo qofkii yiraahdo rasuulka Alle wuu geeriyooday. Laakiin Abuubakar waa uu deganaa oo iimaankiisa ayaa sugay, xaaladaasna isaga ayaa dejiyay. Markaasuu saxaabada kulmiyey una akhriyay aayad Qur'aan oo tilmaamaysa in rasuulka Alle uu bashar yahay, geeriduna ay xaq tahay. Markaasuu Cumar fadhiistay. Asxaabta ayaa Abuubakar u doortay inuu noqdo khaliifka koowaad ee Islaamka. Taariikhdu markay ahayd 12 bishii 3 11 Hijriyada, kuna beegan 632 miilaadiga, wuxuuna xilka hayay 2 sano iyo dhowr bilood. Wuxuu qaaday dagaallo waaweyn, kuwaasoo uu la galay murtadiintii zakodiidka ahaa iyo kuwii nebinimada sheegtay sida Musaylama al-Kadaab iyo Sajaax. Wuxuuna ciidankiisa hogaamiye uga dhigay Khaalid bin Waliid, kaasoo guul ka gaaray dhammaan murtadiintii. Barkood Islaamka ay dib ugu soo noqdeen, barkoodna waa la laayay. Kadib wuxuu ciidanka Islaamka u diray furashada Ciraaq, taasoo hoos tagi jirtay dowladda Faris, hadda waa Iiraan dalka loo yaqaano, iyadana sidoo kale waa la furtay. Wuxuu bilaabay furashada Shaam, laakiin xanuunka geerida ayaa ku simi waayay. Markuu Abuubakar xanuunka geerida ku cuslaaday, wuxuu isagu yeeray saxaabada, wuxuuna ku yidhi, iga guddoomay xilkii aan idin hayay oo cidda rabtaan u doorta. Waxay yiraahdeen, adiga kugu kalsoonahay ee cidda rabto noo door. Markaasuu Cumar bin Khadaab doortay. Wuxuu geeriyooday maalin Isniin ah bishii Jamaadul Aakhir, sanadii 13 Hijriyadii. Allah ha ka raali noqdo.